Tani waa wacyigelin ku saabsan in hooyadu nuujiso cunugeeda. Hooyooyinka qaarkood ayaa laga yaabaa inaysan ku baraarugsanin faa'iidooyinka ay u leedahay ilmahooda inay nuujiyaan naaska, gaar ahaan 6 bil ee ugu horeydo si aan kala joogsi lahayn. Waxaa laga yaabaa wixii ka dambeeya 6 bil in aad iska joojido cunuga naaska inuu nuugo arrimo caafimaad oo ay kula soo darsa awgood, laakiin waxaa la rabaa inaadan guud ahaanba ka joojin 6 bil ee ugu horeyso. Waxaana loo yaqaanaa exclusive breastfeeding, waana caanaha waxgalka u leh koritaanka iyo badqabka jireed ee cunugaada. Dhowr faa'iidood ay leeyihiin caanaha naaska hooyada ayaan kula wadaagayaa. Caanaha hooyada waxay ka dhigan yihiin kuwa si sahlan loogu burburi karo dheefshiidka cunuga. Maamooyinka qaarkood ayaa sameeya in cunuga xilli horeba ay ka bedelaan caanaha oo ay siiyaan caano macmal ay la sameeyay sida caano booraha oo kale ama caano kale. Waxaa muhiim ah hooyo intaad caanaha gasaca ama caano kale xoolaad aad cunuga siisaneed inaad adigu cabto, kadibna markii caanaha naasaadu caana keenaan adigu aad nuujiso cunuga. Waa cunto dhammaystiran. Caanaha cunuga aad siinayso ee naaskaada ka imaanaya waa cunno dhammaystiran Allah subxaanahu wa ta'aalana uu kugu dhex diyaariyay. Waxay taasi ka dhigan tahay in cunugaadu aanu u baahnayn wax cunno ah, biyo, carbohydrate, protein, wax walba ku jira. Waa caano nadiif ah oo diyaarsan, kaamana rabaan inaad kululeysid. Caanayowga kale, caano lo'da, caano geelka waxay u baahan yihiin inaad kululeyso. Gaar ahaan caano lo'da kale waxaa ka buuxa parasite ama jeermisyo qaarkood sida gooryaano. Waxay mar walba u baahan yihiin in la kululeeyo. Haddii aad tijaabiso caanaha lo'da oo aad meel dhigto, waxaad arki karaysaa muddo kadib caanihii oo guud ahaan isbedelay. Taasi oo macnaheedu ay tahay in xataa ay bahala ka dhalan karaan. Qodobka kale waxay siiyaan jirka ilmaha difaaca, waxa ayna dhisaan habdhiska difaaca jirka ilmaha. Caanaha hooyada waxaa ku jira wax la yiraahdo antibodies oo ah waxyaabo jirka cunuga asaasi u ah, kuwaasi oo muhiim u ah in cunuga jirkiisu iska difaaco jeermisyada qaarkood sida bakteeriyada iyo fayralka. Haddii aad cunugaada nuujin, waxaad filan kartaa in cudurro badan oo sahlan ay ku dhici karaan. Waxa ay siyaadiyaan isku xirnaanshaha iyo galgaceelka ka dhexeeya hooyada iyo ilmaheeda. Waxaa loo yaqaanaa bonding. Waxaa kale diinteenu ay baraarujisay ilmaha in la nuujiyo muddo 2 sano ah. Xigmadda saas lagu leeyahay waxaa waaye 2 sano oo hooyada cunugeedu ay nuujinayso waxaa suurtagal u noqonaysa cunuga inuu ka aqoonsado dadka kale hooyadiis. Waana qodob asaasi ah oo diinteenu ay aad u baraarujisay in hooyooyinku ay nuujiyaan ilmaha 2 sano. Sidoo kale waa inaad cunugaada nuujisaa maalintii ugu yaraan 8 jeer oo aad ku soo celcelidaa caanaha naaska, maadaama iyagu ay u yihiin raashinka asaasiga ah, cabitaanka asaasiga ah oo kaliya ilmuhu ay qaadan karaan, lana falgeli karaan jirkooda. Wacyigelintan ku saabsan in ilmaha la nuujiyo gaar ahaan 6 bil ee ugu horeydo, haddii aysan jirin wax kaa reebaya inaad nuujiso wixii 6 bil ka dambeeyana iyaduna aad u fiican tahay. Maamooyinka qaarkood ayaa aaminsan in ilmaha aan la nuuji karin haddii uur la qaado, laakiin inkastoo hormoonada uurka ay keenaan in guud ahaanba ay joogsadaan caanaha naaska, haddana waa la nuuji karaa oo wax ay dhibayso ma jirto. Sida awgeed oo kuu muhiim inaad nuujiso cunugaada si walba iyo xaalad walba ku sugan tahay. 6 bil ee ugu horeysana waxay u leedahay muhiimad gooni ah. Intaan ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeena Xogaha Caafimaad oo ku mahadsantihiin dhegeysiga. Sii share gareeya, like iyo subscribe tan ayaan maamina mahadsanidin.